qof kasta oo bini aadam ah oo dareen jacayl qof u qaada wuxuu ku riyoodaa inuu helo qofka uu jeclaaday. waxa uu waqti iyo dadaal ku bixiyaa sida uu qofka mar u heli lahaa. haddaba sidee ayaad isu jeclaysiin kartaa qofkaasi aad jeceshahay? sidee ayaad qofkaasi uga dhigi kartaa inuu ku jeclaado ka hor intaadan u bandhiganin jacaylka aad u qabtid? halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 5 qodob oo muhiima inaad samayso. intaan u gudagalin waxaan kaa codsanay inaad muuqaalka la garayso. haddee waa codsasho, waa codsasho, waxay ii tahay dhiirigelin, sidoo kale waxay laagtaada caawin u tahay qofka raba inuu arko muuqaalkan. qodobka koowaad, saaxiib dhow la noqo qofkaad jeceshahay. ha degdegin, waqti kasta oo kugu baxo u dulqaado ilaa aad ka ogaatin qofkani kugu sii qarsanayo aadna tahay saaxiibka ugu dhow ee uu leeyahay ama ay leedahay. ogowna in qof saaxiib dhow la noqotid wax sahlan ma ahan, inkastoo ay ku xiran tahay hadba booska aad ka taagan tahay iyo sidaad isula dhaqantaan. qodobka labaad, daryeel qofkaad isjeclaysiinayso. qofkani waxaad u fidisaa keegareen midda ugu wanaagsan ee aad awoodid. waxay u baahataba u soo qabo, markasta noqo qof naxariis badan. marka ay xanuunsan tahay booqo, una sheeg inaad ka walwalsan tahay xaaladeeda ama xaaladiisa. ka warhay oo saacad u wac, weydii sida ay noqotay ama uu noqday. ha ku arko qofkan inaad daryeelaysid kana fikirayso, laakiin daryeelidda ha ku fogaanin oo ha gaarsiini in lagu naco. waxaan ula jeedaa ha ku talax tegin daryeelka aad qofkaa daryeelayso, si dhexdhexaad ah u daryeel. markastana waxa aad fiirisaa waqtiga uu qofkani u baahan yahay daryeelka iyo garab istaaga. qodobka saddexaad, si fiican u fiiri qofka indhihiisa markaad la kulanto ama markaad wada sheekaysanaysaan. tani waxa ay ka dhigan tahay in qofkani aad dareensiinayso inuu muhiim agtaada ka yahay. xitaa waxa ay muujin kartaa sida aadka qofkani aad u jeceshahay. qodobka afaraad, ammaan qofkaad isjeclaysiinayso. ammaanta waxay qayb laxaad leh ka qaadataa in qofkani aad isku soo jeediso dareemadiisa. waxaad ku ammaani kartaa howlkarnimadeeda ama ficilo ay samaysay ama uu sameeyey aad ku aragto. u fiirso, adiga qofka ku ammaanayo qofka kale way kuu kala duwan yihiin. qofka ku ammaanayo waxaad siisaa dareen gooni ah, xishmad ayaad u haysaa, waadna jeceshahay la kulankiisa. sidaasi la mid ah ay ammaanta kugu suurtagelin kartaa in qofkani uu ku jeclaado. qodobka shanaad, hadallo positive ah ku hadal. qof kasta oo bini aadam wuxuu ka agdhawaadaa dadka hadallada wanaagsan ku hadla. dadka hadalladoodu rajo wanaagsan abuuri karaa, farxadna ka heli karaan. adigana kula hadal hadallo wanaagsan oo qurux badan. marmarka qaar la kaftan, u sheeg inay aad u qurux badan tahay adigoo si dareen leh u muujinaya. isku day inaad u sheegtid dharka soo saaraya oo ka dhigaya qof soo jiidasho leh. u sheeg xitaa in adigaba ay ku dhex qaaday ama uu ku dhex qaaday. 5tani qodob waxa ay muhiimad weyn ka qaataan sida aad qofka uga dhigi karto inuu ku jeclaado. waxaan hubaa haddii 5tani farsamo aad isticmaasho in aad ku guulaysan doontid.